oo kuwan hadda dadka qarxinaya eber ka dhigay boqolka muxuu ahay tarabta dadka u leeynay maxay ya jahli bahay waa jaahiliin waay laana haduu ruuxu aqoon leh oo diinta wuxuun ka garanayo ilaahay muusan ugu dhawaadeen dambi ilaahay laga galo ka ugu weyn ka labeeya ilaahay muusan janno kaga raadsadeen ya dambi ilaahay laga galo shirki baa weyn sooma shirki maxaa ku xiga ruux mu'min in kas loo dilo oo amdi loo dilo waa dambiga soo raaca waa dambigi nooca aha ka waran oo boqolaal ah oo ninka ilaahay ugu dhawaanayo janno ku galaya ka waran marka adiga ma cid ka jaahilnisan baa jira jahli ka badan ma jiro marka jahligu waa ku halaagaya waliba kaasi waa mid dansaaraho waa kii ugu darnaayo murakkabka aha hadda ka hadlaynayo inay diintu dansaarku u gasho oo aayadii ku soo arooray muxuu ahay gaalada aad muuminiinta ku dabaqdo oo dadkii muslimiinta ah ta'wiil dhigooda ku daadiso waa kii murakkabka ah jahligii halista way ka isaga kii maaha baalkiya waana fitanka asalkooda way markuu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanka fitanka ummadda ku dhici doona oo dhiiga daadanaya islayntan iyo waxa asal waa jahli baa asal waa حديث صحيحين كوي من واكي أبو موسى الأشعري وكي النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج ولو فيرس يعني وحوي علم جيب الله قاضية جهل بابوسكي سجلية ديك ولا دادية مركب بدنية ديك دادنا مركب وحوي أفراها بدل وحا أساسه أقون ترضى جهلك ما أكون هذا يعني وحوي قالده محو ahay يعني sida babqada oo kale to gaaladu waxay uun sheegaan xiliyo oo sheega ma oo afkaartan muxuu ahay dhiiga daadinaysa umada gaalaysiinaysa ma ka imaanin barashada diinta iyo barashada kitaabka iyo barashada sunnada kama imaanin warkaasi warka gaalada iyo munaafiqiinta waa barashada diinta kitaabka iyo sunnadu waa badbaado afkaartaasna laga hortago quluwiga wahay laakiin afkaartaasi meeshay ku dhalato iyo bii'aday ku dhalato iyo meeshay wax ku kharibto waa jahliga saas daraadeed waxaad arkaysaan afkaarta bal caalamka islaamiga u fiirsado dadka xambaarsan hal nin oo culimo ah oo aqoontiisa lagu kalsoon yahay kuma jiro ninba ninku ka aqoon roon yahayna waa ka fog yahay ninba ninku ka jaahilsan yahayna waa ku dhex jira cilmiguna ma aha aayad la daliiliyo ma aha xadiis la daliiliyana ma aha cilmigu waa fiqhi waay cilmigu waa warac cilmigu waa alla ka cabsi cilmigu waxa way muwaatinta shubaha inuu ruuxu ka fogaado cilmigu waxa way wixii ilaahay uu ilaaliyay in la ilaaliyo waay cilmigu waxa way aayad la soo qaata ma aha cilmigu ma aha dhiig muslim oo daatay in aad aayada ku dul akhrido alxamdulillah tiraado ma cilmi ba ya waxa cilmi ma aha waa jahli meeshii ugu dambeysay waa sidaas daraadeed jahligu waa halaag kiisa basiidka iyo kiisa murakkabka aba waa halaag markaad culimo ismoodo ayuu ugu daray